galangayan qaadi galan hoobiyan qaadi uura lahay 70 bere uurkaas gacantaas dartiya dhaawac ii deeri hoobil ii tumi dhuuri wala dareem dhiig anuunkaas qabo yaha maragna bay markii dhibaatadaas dartiya ii bijilida saagna bay halanaagda tan marramaad hoobana koy kastay kaamay way tan marramaad la bay dhibaatadaas dartiya unog hajiridi dhiiga sheeni ha oo digmi isbitaalna ma awoodna beesilna ma awoodna walna ma awoodna si dartiya caafimaad ilaahay sheeni cadaalad iyo dayadoor dadkaasi dad oo ideen amal dariska ay lahan weeri halkaas madaas laskaaysadee ku xaliyayaan ay halkii hoob wiinadi man ku kaam gadoomi ku ay lan weeri halkii way in dhaxgali si dartiya hadagayno ay qaadi meherkeeni meel ilaahay ku saari barnaamijka soo bilowgaadi way in dhaxgali walaay way in saasak an casanaatan ideed in isku himaarday gurniyo soo gadgaday dhibaatada shalay markii gabi qabo ma qabo alxamdulillah haddii aanu nahay hay'adda iskaag waxaan ka howlgalnaa 10 IDP iyo in ka badan inta badan taadiyada ka dhanka ah dumarka haddii ay ahaan lahayd taadiyada qoyska ama kuwa dhaxmara lamaanayaasha waa aan xallin karnaa anagoo u marayno nidaamyada garsoor ee ka jira dalka laakiin waxaa jira taadiyo iyo faldambiyeedyo waaweyn sida kufsi wadareedka gacanka hadalka iyo taadiyada loo geysto caruurta kuwa oo ah dambiyo culculus dhaqan ahaan iyo caado ahaan inta badan la qariyo si dhaqan ahaan iyo qabiil ahaanna loo galo taa oo mararka qaar dhici karta in ay xuquuqdoodii cadaaladeed ay waayaan waxaa loo baahan yahay horta in la helo laba dhinac oo iskaalmaysta dhinac ah awoodii dawliga ahayd iyo sharci in la helo iyo dhinac ah cidii hawsha qaban lahayd tusaale ahaan sida hay'ad iskaag oo kale waxa iyada awoodo ay qaban karto oo loo baahan yahay in la qabto dhinaca dawladda waxaan soo jeedin lahayn in horta la helo tababaro capacity building ah oo macnaha loo sameeyo xubnaha macnaha ka shaqeeya baarlamaanka oo human rights committee-ga naftirkooda horta in la macnaha la wacyigeliyo oo tababaro la siiyo la geeyo hay'adaha wadamada dawladuhu ka dhisan yihiin oo baarlamaankooda iyo human rights-kooda shaqeeya qaabka u shaqeeyaan soo arkaan kadibna ay ka dejiyaan sharcigaasna baarlamaanka uu baaskareeyo lana dhaqan geliyo in la tababaro booliskii in la tababaro xubnihii garsoorka in hay'adihii cadaaladda oo dhan la siiyo capacity building-kooda maadaama ay dadka hawsha gacanta ku hay ay u badan yihiin dad markoodii hore bayskooda si kale ku imaadeen uusan dhisnayn oon aqoon iyo dallacad aan ku gaarin darajooyinka ay hadda maamulayaan oo wax badan ay ka maqan yihiin